waxaanu wadnaa socdaalkii tuulo yar waxaan joogaa qudus yar dhow xoogaa ka yar baxsan oo la yidhaahdo cayn alkabiir marka arrintii baan wadaa ayaddii subxaana aladii asraa cabdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنري آياته إنه سميع عليم أي أحد إلهي ككيني نبي مكة إلا يمدي مكة ككيني بيت المقدس كيني بيت المقدس كاسو الذي باركنا حوله لبركي هريره دودن بركدي بكمتاتني هل كان وحويا وحا كل شيء نبي إذا كمدا نبي جا وحال أرني يحيى بن زكريا وحويا وحكو جرا خيرها إلهي بركي هيدي خير كري إبراهيم reerka reer yacquub iyo reerkan haaruun zakariye yaxye aabihii nebi yaxye aabihii da-weyn isagoo jira 100 iyo xoogaa jira islaantiisuna malaha 80 iyo xoogaa lagu sheegay iyo ilaahay baryey oo ilaahayow wiilisi idhaxla oo adigana ku ahaada adoonkaaga fiican markaasuu ilaahay ka yiri waa la waaji waa la aqbalay ducadaadii wiil baan ku siinay isagoo 100 jira uu ducaysan jiray markii hore laakiin markuu 100 iyo xoogaa jiray yaa laga yiri islaantiisna 80 iyo 90 iyo xoogaa yaa laga yiri bishaarayso wiil baan ku siinayna wiilkana anaka magaca uu bixinay ilaahay baa u bixiyay magacaana hore loo maqal wiligii li horna loo sheegay yaanu bixinay magaciisuna waa yaxya magacaasi waa magaca ilaahay baa soo bixiyay nabi zakariye inankiisa markaasi loogu bixiyay zakariye waxa kale waliba cajiiba nabi ciise isku waqti bay ahaayeen oo marmaatay risaaladooda sideen isku magaaladan بتلحم يسقونا كل شيء نبي عيسى يحيى حكم بكل شيء دوم لها صدن كلمة البعد حيسة الله بعد الدمر مريم نبي عيسى هو يدي إيو زكريا هو يدي إليزابيث المادير بهاين ويسيقاني مركز زكريا يحيى وهبرو وداقو اسكو وقتنا ويجوغين اسكو ميلنا رسالة iyo dadka ay ku soo hanuuninayeen zakariya arkaana islaamka ee nabigeena aan ka dhaxalnay badankiisa 90% waa isaga loo soo dhiibay zakariya waxa loo soo dhiibay yaxya loo soo dhiibay oo yaxya iyo nabi ciise oo isla jooga bayt al-maqdis iyo ka yiri nabi ciise yaxyo ilaahay wuxuu ku faray shantii shay ilaahay ku faray shantii arkaan ee adigana ku dhaqan dadkana ha ku dhaqmaan ma sheegaysaa mise anaa sheega yaxyo ka wareegay haydo waqti badan ba ka soo qaatay markii la amray nabi ciisena uu ogaaday yaxyo wuxuu ugu jawaabay maya haddii sheegtid waxaan ka baqayaa dhulku ila go'o inuu dhulku ila go'o aan bali cadaabo ana sheegay marka labadii isgarab jooga yaxye iyo nabi ciise iyo dadkii u yeeray dadkii qudus joogay iskugu soo yeeray markaasuu yaxye bilaabay dacwadii shantii arkaan ee loo soo dhiibay
wuxuu yidhi shanta arkaan waxay ahayd laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah walaa nashriku bishayin abada. hal la rumeeyo arkaanta ugu horeysa ilaahay keligii inaanan qofna lala caabudi karin. taana wuxuu ku sarrifay yaxyi markuu arkaantaa sheegay wuu turjumay. wuxuu yidhi waxa weeyaan ka soo qaad adiga oo nin kiraystay, nin soo kaxaystay, shaqaalaysiistay, lacag ka bixiyey, amba addoon waqtigaa doona jira soo iibsaday, lacag ka bixiyey oo tiri haye soo shaqee wixii macaashana ii keen. uu sidii sameeyey soo shaqeeyo macaashkii laakiin qof kale siiyey. sidaasoo kale tahay ilaahay ninkii shirka u yaala. sidaasoo kale weyaan. arkaanta labaad waxay ahayd waa inaa salaada la tukado. yidhi ilaahay wuxuu amray inaanu salaada tukado, ininkuna aad tukatiin yuu ka yidhi reer bani israa'iil qudus. taana wuxuu ku tilmaamay ninka salaada tukanayaba ruuxa salaada tukanaya dumar iyo rag ilaahay markay hor joogaan ilaahayna hor joogaa. hadduu jeesto isaguna ka jeestaa. sidaasaa la yidhi. waa sida imika aan dhaxalnay inuu qofku isku mashquulin markuu salaada ku jiro haddii ka ilaahay kaa mashquulin. ta saddexaad uu yaxya amray uu yidhi anigana waa la amray ininkana waa lana amray ku dhaqma. wuxuu yidhi ha la soomo soonka. taana wuxuu ku macneeyey micnaha markuu sameynayey sidii dad caynkanoo kale u dhex jooga dad badan, adiguna aad dhex timid adigoo sida sallad miskiya cadarada guudgoon oo sallad ka buuxdo keena dhex joogsa dadkan maxay dareemayaan udgoon raaxo. sidaasoo kaleu yidhi ilaahay ninka sooman iyo qofka sooman ruuxa sooman neeftiisa ilaahay saas ugu raaxaystaa. sidaasuu yidhi soonkii. ta afraad wuxuu yidhi zakada waa lay faray ininkana reer bani israa'iil waa lanay faray ku dhaqma. taana wuxuu markuu sarrifayay wuxuu yidhi zakadu waxa weeyaan adiga oo cadow ku qabtay qoorta meel ku dhigay uu qoortii kaa goynayo oo adiguna qaylisay oo tiri hooya lacagtan igu furta waan isku furanaya oo laga aqbalo lacagta isku furatid. waa sidaasoo kale zakadu adigay ku furanaysa. tashanaada ugu dambeysay wuxuu yidhi xasuusta ilaahay. wataana ku qorata arkaantiina oo isku mid untoonde laakiin si kale aanu ka dhigno. xasuusta ilaahay wuxuu yidhi waa nin cadow erinaya ka soo gala meel sidan oo xidhan oo difaac leh oo cadowgiina meel ka soo gala waayay dib u baxsaday. sidaasoo kale weyn xasuusta ilaahay waa inaad qalbista qacan afkiina ku haysiin. annakuna dee xaju man istidaaca waxa weeyaan xajka loo tagaa ilaahay lagu xusaniyo waa arkaantii shantii sala. sidaasuu ahaa nebi yaxye isagaa ka dhaxalnayna shanta arkaan. taasaa igu soo kordhay. waxaa kaloo yaxye gaaladu markay biyaha isku ridaan baptism ay sameeyaan yaxye isagaa dadka daahirin jiray. saas ku daahirin jiray. nebi ciisena macalse saa ku sameeyey oo biyaha dhexgeli biyaha Jordan baptism ku sameeyey. saasaa lagu bixiyey John the Baptist. yaxye markii dambe waa la dilay. boqorkii halkana dilay dhinac xukumayay qoortu ka gooyey. wuxuuna uga gooyey wuxuu doonay inuu guursado walaalkii islaantiisa. markaasaa laga yidhi moogtay yaxyaha la soo weydiiyo inay xalaal tahay. yaxyaa la weydiiyo waa xaaraan buu yidhi ma guursan kartid. markaasa gabadha tiri qoorta iga gooya. qoorta laga gooyo. qoortii waxaa la yidhaahdaa waxay ku aasan tahay dimashq miskiidka weyn. meelo kalena lagu sheegaa bare qacmihii bay ku sheegtaa meelo kale sisili meel buu ku sheegaa. laakiin yaxya sidaasaa lagu dilay.
yaxyana isku waqti bay hayeen nebi ciise oo wuxuu ahaa waxaa loo soo diray weliba wuxuu ahaa horsheegaha nebi ciise dadkuu soo sheegay inuu imanayo masiixa markuu yimidna isagaa sheegay yaxya halkan buu ku dhashay markaa barakadiisa maanta insha allah bilaa kariim saasay tahay halkan baan insha allah kuma tukan karo waa kaniisad laakiin waa iska niyeysan inaan labadii ragcadood tukanayo shaqa ku socota waa kan xal ku dhashay waan dhukani intayna qoladaygu yimin